Xamse Mustafe Madaxa Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xiriirka kubadda cagta Somaliland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu soo xidhmay muddadii uu furnaa suuqaasi waxaanu isagoo ka hadlayay uu yiri waxaan halkan ka cadeenayaa saacadu tahay shantii galabnimo inuu halka ku xidhmay suuqii kala iibsigu maanta bishu tahay 7 bishii labaad 2021 oo halka ay maanta xiliga laga bilaabo suuqu ku istaagay intee ayay gaarsiisan tahay muddada uu xilkan hayay Xamse Mustafe Madaxa Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xiriirka kubadda cagta Somaliland waa kan isagoo ka hadlaya muddadan xilka hayo 2 bilood oo la magacaabay 2 bishii 12 2020 oo imka ay tahay bishii labaad 2021 ka way magacaabay gudoomiye Faad Axmed Cali sida uu sheegay Xamse Mustafe muddada 2 bilood ah ee uu kan hayay maxaa u qabsoomay muddadaasi isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yiri waxyaabaha aan qabanay waxa kamid ah inaanu buugaagta hore ay ku jireen feelalka hore cusbaan dib isboonisiin aan ku sameeyno aanu bedelno buugaagta cusub ee 3 waraaqood kamid ah oo ciyaartoygu qaadan doono waraaq iska ku socota iyo maamulka ku socda iyo waraaq u dhigmaysa xafiiska shaqadii kale aan bilownay waxay inaan feelalkii 30 kooxood aan DBA soo eegno aan feelalkii baarno aan buugaagta imka cusub ee 3 waraaqood aan ku soo sheegay aan ugu bedelno waxay xafiiskaygu wuxuu ahaa xafiiskii ugu socodka badnaa ee ugu jaamka badnaa ee xiriirka la mahadiyay ee ciyaartoyda iyo maamulku ay mahadiyeen inuu noqday xafiiskii ugu fiicnaa activity-ka fiicnaa systemka cusubna aan gelinay buugaagta lagu bedelayo waxaan kale aan ku soo kordhinay inaan database ciyaartoyga ku xareyno oo ay noqonayso hadii uu buugaagtaasi wax ifan ay ku dhacaan in database-ka aan kala xisaabtami doono si halkan uga soo saari doono ciyaartoyga isagoo ka sii hadlaya in markii ugu horeysay ee dalka ay tahay in la sameeyo heshiis burburin kooxi ay koox kale ciyaartoy kala soo wareegi karto ayaa waxa uu Xamse Mustafe uu yiri waxa kale oo aan soo kordhinay oo ku cusub Somaliland in ciyaartoy heshiis burburin lagu sameeyo oo ciyaartoy koox kale kamid ah in ciyaartoy koox kale uu heshiis burburin lagu sameyn karayo heshiis burburinta ku dhacaan tusaale ahaan ciyaartoyga la yiraahdo Xamse Cabdiqaadir oo asluubta kamid ahaa ayaa ay ka soo iibsatay kooxda dawladda hoose oo heshiis burburin halkaas ka dhacay ciyaartoyga labaad oo ahaa Atifetaax Kanto oo ah wasaaradda caafimaadka oo heshiis burburin ku sameysay kooxda asluubta ciyaartoyga saddexaad oo ah Idris Danyero oo kamid ahaa ciidanka asluubta oo heshiis burburin lagu sameeyay u tagay kooxda gaashan ciyaartoyga Cabdiwaduud oo la yiraahdo kamid ahaa jiray wasaaradda caafimaadka iminkana heshiis burburin ugu tagay kooxda ciidanka booliska mar haddii uu soo xidhmay waqtigii rasmiga ahaa ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa Malcab Sports weydiisay Xamse Mustafe Madaxa Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xiriirka kubadda cagta waqtiga xiga ee dib loo furi doono suuqa kala iibsiga ayaa waxa uu yiri ano halkan ka faa'iideysanaya fursad website-ka Malcab waxaan fariin u dirayaa maamulka iyo ciyaartoyda ka faa'iideysan kar waayay waqtigu ka xirmay inuu suuqa ciyaartoyda ama meel kala tagaan ama koox kala tagaan inuu bisha Ramadaan insha Allah dib u furmi doono waxaan maamulkana aan ku adkeenayaa sidii halkan waqtigooga ay u lusgarin jireen inay maalmaha bisha u hadhay si fiican ee ciyaartoyda ka faa'iideystaan Axad Qaran wararka Malcab magaalada Hargeysa.